سعيد ما أنت جنال كأنا مرتكوه سودو مرتي أنكو هذا محمي مرتي سؤاله هذا والتاه سؤال بدنا واحد يجي وحنا كجرنا وكجوابنا ساسها في لا عاوننا ساد مركو سؤالها أنكو بدنا واحد يجي مع جنال كيجو صح مركو أصحابتي ذا مروا بيسوي دي قاب جنال كيجو شدين يعني هاي مش عارف ويلي بارك يعني ويلي بس كده يا وبعدين مركو سؤال بدنا إذا أصحابتي يجي مع ذا أو قصابسن سيدي فيلمانتو يعني سيدي لو فيديوهذا لو إديت كريو صح أما صورة في عن لقطات صح تاسو أنيقا توبيجي جنال كي مرة أو يا رياكشن أو سنقصب سنة فيلمانتي إيو صح لكن أن فيلمانتي وحسن أن بدنا مهمة صاروا صح وتاي واحد أن جعله صح وهذا أديك سيجوك تدو أديك في عنده بركو حكوا دينها سيدا like لوس ما سؤالها بدنا يجي ما وحنا لبس سؤال هرتك سوقات مانتو بدنا سؤال وقصب سنة سيدا تكواد مانتو سيدا صور قروح بدنا الله لا صح هذا ما أنت حسماني إن قبت وهو رسوا sidee qof u qaadan karaa sawir qurux badan ay ku jirto motion ama dhaqaaq xaggi dambe background-iga dhaqaaqaya xaggi hore qofkii dhaqaaqay oo Instagram-kiisa soo gashan karo rag badan oo xajir professional ah oo arimahan ayaga soo sameeyay marka hore ka isticmaashin waa kiisa kale inta badan dadku laakiin waxaa la isticmaalaa Photoshop oo kale oo aad buu u fudud yahay in loogu sameeyo cinematographic wax la yiraahdo laakiin anagu waxaan isticmaali doonaa Final Cut hadda iyo kan oo kale hadda waxa u baahan tahay camera iyo tripod hadda waxaan sameeynaa background-iga marka hore sawirina intaan sawirin ka hor waxaan fiirinayaa setka inuu ii fiican yahay kan oo kale hadda waxaan geysanayaa ISO ka yareynayna intuu yahay 100G okay background-iga kasa background-iga ana sawir ka qaadayna marka hore صح background-iga sawir ka qaadna hadda ana meesha istaagayo ada sawirkii qaadayna soo dhawaad mar labaad qaybtii hore soo qaadnay sawirka wana la socoteen waa aragteen saan sawirka u soo qaadnay hadda waxaa hartay qaybtii aad kaga shaqeyn lahayd Final Cut-ka sidii oo kala dhaqaajin lahayd sawirka iyo qaybta dambe ama wax ka dambeeya sawirka haday geedo noqdaan haday guriyo noqdaan iyo haday buura noqdaanba marka hadda qaybta waxaan ku sameynaynaa Final Cut-ka intaan sameeyay ka hor waxaan jeclaystay inaan kafe sameysto iyo macmacaan yes hadda waxaan gelaynaa qaybtii Final Cut-ka idinka soo dhow hadda waxaan sameynaynaa project cusub aan sameynaynaa Final Cut hadda ku jirnaa waxaan sameynaynaa project cusub projectigaas oo ah waxaan ugu magacdarnaa library cusub horta inaan sameyno waxaan leenahay sawir dhaqaaq ciwaanka hadana bedeli kartaa sawir Instagram aan leenahay meeshan 4K ku qoran tahay waxaa ka dhigaynaa custom kan oo kala wareejinayna si Instagram ku sawirka u gal waa aragtay Instagram inta badan sawiradeeda waxa weeyaan waa saas u dhaadheer yihiin wuxuu samaysan sida telefoonka oo kale marka xagaas waa inaad ka dhigtid isdaba marisid 1080 xagana waa ka dhigtid 1920 24B waa ku diinayna normal xagaas waxaas dhan ku diinayna okay baa leenahay marka hadda waxaan doonaynaa sawiradii aan qaadnay
marka meesha joognay waxay iigu jiraan meeshan oo la yiraahdo aqoona horta inaan helnaa backgroundiga marka hore inaan helnaa background kan ila hoos leh okay kaasa fiican kaasa qaadanaynaa okay hadda marka soo qaadatid sawirkii iyo backgroundiga ku hormarina soo jiidayna timeline ka dhigana meeshan loogu talagalay yara jiidayna marka isaga naftigiisa waa ina weynaysid oo aad طبعا weynaysid oo ka dhigtid ilaa ay meesha inuu qabsado sawirka inta yar waxaan ka dhiganaa intaas okay miya intaas okay 151 155 ka dhigba 260 ka dhigna kadibna waxaan soo qaadanaa kan sawirka caadiga ahaa isagana ku dejinaynaa meesha isagana waa dabcan weyneynayna waxaan ka dhigaynaa 260 isku intii 260 waka bahashan haddaa baratid sida loo isticmaalo waxa weeyaan waxyaabo badan lagu sameyn karaa waa bahal powerful isaga kor saarayna kadibna bahashan weyneynayna si noogu soo dhawaado sawirka marka dhibcaha yaryar ayaad sameynaysaa si qofka u dhow kale oo iyaga badan marka waxay sameynaysaa bahashan qofkay jaraysaa kadibna backgroundigi ayaad ku dhejinaysaa marka lama fahmay sawirka waa sawir adoo soo jaray oo kale oo meel aanan lahayn keenay hadda laba sawir ba ahayn marka way is dhex gelinaysaa bahashan ka dabcan waa saasaad u sameynaysaa hadda fiiri soo eegyahay very beautiful so marka hadda xasmeynaysaa kan koowaad yaa waxaa imaanaysa meeshii laga weyneynayay waxaan leenahay markuu sawirka inta joogo meeshiisa ahaada laakiin markuu geeskaas kala imaado waxaan ku dareynaa ilaa iyo 50% oo kale si uu soo noogu imaado inta kale ilaa 400 ka dhimasha 400 ka dhigna oh sorry inka meesha xagan joogna waxaan marka meesha bilowga joogo waxaan sameynaynaa marka waxaa la dhahaa key baa la bahasha key frame yani adaa waxaad dooranaysaa waxaa leedahay markuu uu joogo meeshaas waxaa rabaa inuu xagga ahaado yani waa key frame waxba meel baa ku xiraysaa marka meesha lagu xiriyo af Soomaali wax u dhama garan laakiin meesha lagu xiriyo waa key frame kaas gadaal markuu imaadana waxaa leedahay waxaan rabaa inuu noqdo 400 iska fududaysanayna dhag hadda marka saas uu noqonaya marka haddaan daarno kale mujeda sawirku soo socda soo weynana si tartiiba mujeda okay iska istaaji dib noogu celi hadda sawirkan saas sameynay soma background naftigiisa saan ka dhigana background ma xasmeynana sayna dhinaca kale ka dhigana xalan horta add key frame yeli markuu meeshan joogo waxaan leenahay isaga waxaan rabnaa inuu noqdo 400 oo saa uu soo dhawaado markuu dhamaadka joogo laakiinse key frame kiisa waxaan ka dhigaynaa dib baan u celinaynaa meeshii hor uu joogo 260 aan ku celinaynaa yes marka way kala soconayaan midna gadaal u soconaya midna hore u soo soconaya marka si qurux badan bay noqonaysaa sidaas oo kale mujeda sawirku soo dhawaanaya
ka kalena gadaal usii soconaya marka laba waxaa kala tegaya oo qurux badan soo nilma qurux badna yaa bowe mise waa foolxumo ma garanayno calaa kulli xaal waa ila fahanteen waxaan ka wado barnaamijkeena maanta intaas ku egyahay waad mahadsantihiin martida shaah kafee maxaad dooneysaan waa mahadsantihiin anigoo ciyaaraya laakiin wixii aan khalday ama wixii aad ra'yi haysaan soo gudbiya hoos ku qora waayo sidaa iyo mar kale iyo kulan kale oo dambe mac salaama